Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabadda uu xilka kula wareegayay wasiirka cusub ee caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan Abubakar oo lagu qabtay gudaha wasaaradda. ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay wasiirkii hore ee caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur iyo wasiirka cusub ee caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan Abubakar. wasiirkii hore ee caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur oo si rasmi ah xilka ugu wareejisay wasiirka cusub ayaa ka sheekaysay waxqabadkii wasaaradda shantii sane ee la soo dhaafay ayadoona wasiirka cusubna uu ballan qaaday in halkaas shaqada uu ka sii wadi doono. caafimaadka iyo waxbarashada hadayna dawladda lacag gelin marmar waa dhacdaa waa la geliyay lacag doodahaygana taas ay ugu badan tahay lacagtii markii la geliyay mudnaanta waa laga leeyahay inclusive politics security wasiirka marqaatiyo ugu yahay dagaalkayga ugu weyn golaha wasiirada wuxuu ahaa haddii aydan investment ku sameynin waxbarashada iyo caafimaadka waxaan aad sheegaysin micno mala those problems waa jiri doonaan laa qadar allah laakiin waa facts la taabtay dhalinyarada haddaanan iskuul la siinin haddaanan caafimaadkooda cunug caafimaad qaba waxbarashada xataa waxaa ka horeeya caafimaadka marka waxa waaye budgetka waa la allocate gareynayaa hadda waxaana ku faraxsanahay inaan idiin sheego 1 milyan iyo dhibic 2 ayuu ahaa markaan annaga imaanayna dowladda 2017 maanta waa 75 milyan dollars wasaaradda caafimaadkeeda. إن شاء الله تعالى أنيجا حقيقة أن يتيمك معرفتي إلى شقين دونها وحن بلن قادينا إن شاء الله تعالى إن وحي أقبصوا من وزارة السنين كي لصوت ضعفي وعم هنقضانا شرعيدي لهرقليي سيدا National Health Professional Council كلا لسي iyo معرفة National Health Institute oo la dhisay iyo waxa la wixii u qabsoomay inaan sii hormarino oo aan maaragtay sii tayayno waxaan ballan qaadinaa mashaariicdii ay bilaabeen madaxda naga horeysay ee socotay inaan si daahfurnaan ah aan u maamuli doono mashaariicdaas in si daahfurnaan ah loo maamulo oo lagu guuleysto waxay furo u noqon doontaa in mashaariic kale la helo waxay furo u noqon doontaa in dhimashada hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya la yareeyo waxay furo u noqon doontaa guud ahaan caafimaadka Soomaaliya oo adduunka kan ugu liita ah inuu soo roonaado sidaa darteed waxaan awoodeena isugu wadagayn doonaa sidii mashaariicdaasi si hagaagsan ugu hirgeli lahaayeen dowladda Soomaalina aaminaada lagu qabo mid ka badan loogu sii qabi lahaa. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo ugu dambeyn munaasabadda ka hadlay ayaa kula dardaarmay wasiirka cusub in la xoojiyo wasaaradda shaqadeeda oo uu ku tilmaamay inay tahay kuwa ugu muhiimsan bulshada Soomaaliyeed. waxaa halkan iga muuqda dhalinyaro fara badan oo firfircoon oo siyaabo kala duwan aan ugu arko magaalada iyagoo u adeegaya bulshadooda waxaa ka mid ah cadow oo halkaa fadhiya gobolka Banaadir jooga iyo qaar kale oo fara badan oo aanu shararka arrimaha bulshada isugu iman jirnay caam ahaan caalamul thalithka ama dawladahan hadda horumaraya waxaa laga rabaa budgetka guud ee dawladda in 18% ilaa 20 ugu yaraan la geliyo caafimaadka iyana inay laba hadda cagacagaynayaan bay inoo sheegeen taasi waxay ka turjumaysaa ma aha talo xumo ee waxay ka turjumaysaa tamar darro haddii talada aynu guud ahaan dawladda fadhiisino muranadii iyada iyo beele dhexmari jiray baan ogaa golaha wasiirada waxay ka ahayd champion u taagan mabaadiida hawsha loo igmaday wasiir duruufaad ku soo shaqeystay baan ogahay ilaahay ha ka abaal mariyo dadaalkii weynaad gashay iyo waqtiga aad ka umada ka soo samata bixisay wasiirka cusub aqoon badan isuma lihin laakiin anigu sideedaba qofka hadalkiisa ban aad wax uga fahmaa nin dhowrsoon oo dhakhtarna ah xildhibaanna ah waayaha dalkana wax badan ka og ayuu ila egyahay waxaan u maleynayaa halkii aad dhigtay meel ka sii fog inuu gaarsiin doono isaga iyo wasiirada la socda. Sada Cabdi Taaliil, Universal TV, Muqdisho.